munaasabada ay soo qaban qaabiyeen ciidanka asluubta degmada Garadag ayaa waxa ka qayb galay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag gaashaan la dhexe Maxamed Digaale Siciid Maayirka degmada Garadag mudane Faarax Aadan Ciise xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Cuqaashi waayeelka degmada Garadag xubnadan ujeedkeedu ah isla markaana ciidanka asluubta degmada Garadag ku soo bandhigay wax qabadka ballaaran ay ka fuliyeen xabsiga degmada Garadag ugu horeyntii halka wax ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta degmada Garadag Dhame Xuseen Yuusuf Barre oo ka warbixiyay xaaladda guud ee xabsiga degmada Garadag iyo dhismayaal hor leh oo ka socda xabsiga degmada Garadag oo ka mid yihiin masaajidka iyo mancaamadihi hadaladiisana waxa ka mid ah sida tan ciidanka asluubta degmada Garadag wax qabadkiisii guud ahaan kaasoo soo taxnaa ilaa iyo muddo badan oo aan marnaba istaagin hadeerna maraya meel magaranaysa ummaddu ay ku farxi karto oo qof allaala qofkii arkaa uu indhaha magaranaysa aanu ka lalinaynin marka insha Allah billaah kariim wax qabadkaas waxa suurto galiyay ilaahay ka sokowna waxaan runtii aan u mahadnaqaynaa mahadnaqa koobaad u jeedana ciidanka asluubta degmada Garadag nahay taliyaha qaybta oo runtii qayb libaax ka qaatay gobolka oo dhan sidoo kale iyaguna hadalka iska daba qaatay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag gaashaan la dhexe Maxamed Digaale Siciid iyo Caaqle Daawud Ogle Faarax iyo oday Axmed Jaar iyagoo dhamaantood u mahad celiyay ciidanka asluubta gaar ahaan degmada Garadag isla markaana ku amaanay wax qabad ay ka fuliyeen xabsiga degmada Garadag hadalladuna waxa ka mid ah sida tan annagu waxaanu dhaqan u leenahay hadaan ciidanka asluubta wax soo saar sidiisaba waanu dhaqan u leenahay awal oo ilaahay kiri hadeera waan u leenahay waan u hayn ka dhaqankii aanu lahayn baanu bilownado hadaan nahay gobolka waxaan ka soo bilownay Cergaabo markii dambe wax ceelfayna waa ku xishidii halkana dawaarkiisa inay warko waxaana kalifayay in horta barka sida loo shaqeeyo maxaa kalifaya maxaa keenay la tan gobolku wuxuu lahaa xabsi hal Cergaabo ku yaal maanta waa tadriib fadhi intuu jiro caasibadii iyo xabsina waxa loogu dhow ka burco mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqayaa dhammaan ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag hadduu yahay taliye qaybeed iyo hadduu yahay taliye saldhig iyo dhammaantoodba iyaga oo muujiyay run ahaantii marka xaqiiqo loo hadlayo iyo ciidanka degmada adag ee ciidanka asluubta ee degmada Garadag iyagoo run ahaantii muujiyay wax qabad dhab ah oo dee aan ahayn wax af laga yiraahdee muuqanaya oo dadweynaha Somaliland dee run ahaantii ninka madashan maanta daawanaya waa uga muuqanayo marka xigta wax qabadka dee indhaha lagama laabtay waxbay qabatay dawladani aad iyo aad waxaan ku sii mahadnaqayaa annaga taayada haddaan reer Sanaag ya annaga reer Sanaag haddaan nahay waddo ma lahayn oo xabsiyo ma lahayn oo u yar oo dhalatay intaba magaca dawladana waa ku qabsanay وأصلها موقتها هذا الكيسان هرمركها بالعرض ما تحبسكن وصابن دقي وواحد كنت يشم مدن نمد كير سمعنا أنا واحد لنا عميل كسيتشوغان أما قبل كاستهوا هكون ضيدو قيب تن قبل كسنة عيدين كأسلوب وهو وحقات في عام السنين ديت هاي تن دقمة كردك الأفوين يعرقاب وكوري يجنا اسمه ياشود وطني تيجي دمسي دايا waxaan u sheegaynaa iyagana insha Allah inay iyaguna madar sare muqbahayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag